gaar ahoo maaragtay waxyaalaha waddanka timaadaan inta guud aad samaynaysaan laydi siiyo way sameeyaan waddamada afrikada bari ku yaala qofka qurba jooggeena la shaqeeya qurbaha waxaad arkaysaa isagoo dowladdiisa ay u samaysay card amba record uu leeyahay oo wax kasta waddanka uu soo geliyo loogu bedelaya wax dabeedna qofku kama caajisiyo kamana daalayo heerkaa waynu gaadhi doonaa laakiin hadda ma hayno hadda waxaad ku dadaashaan every penny aad bixisaan haddii ciddaa u diraysaan aan ahayn waalidkiina idin dhalay iyo ubadkiina iyo xaasaskiinii inaad ilaahay u tidhahaan sadaqa weeyaan agtaada noo dhig intaasaan idinku dhiirigelinayay ilaahayna waxaan ka baryaya inuu qurba jooggeena barakeeyo tacabkooda u xasiliyo waalidkood kuwii anfaca waabay yihiin uu ka dhigo marka inaad mar walba ogaataan haddaad dad dhinacdananay aragtaan dad idiin ducaynayaa jira oo og waxaa qabateen waxaan aqaanaa wealthy diaspora oo idinka mid oo si anonymously lacag ugu dira dad aan ehelkoodii ahayn laakiin ama jaar ay ahaayeen oo wax soo baray oo carruur jaamacada ka saaray oo aan in la ogaado doonayn oon meel laga amaanin oo u gudbay wanaaggoodii ay ka arkeen dalkoodii dadkooda inay wax baraan idinkana saasaan idiin sheegayaa siiba haddaad wax baraysaan hablaha horumariya hablaha markaad wax bartaan waxaan idiin ballan qaadayaa lacagtaa u dirtaan 90% inay waxbarasho gelayso inamada qaar baa balwada leh qaar baa yar qayla dhammaantood maaha laakiin hablaha every benyood gelisaan idinkoo nool baad arkaysaan insha allahu tacaala marka saasaan intaan maadaama aad shamarku aad ballan leedahay anka kugu mahadnaqaya intaasaan idinku darsanaya aniguna adeer baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum back to you adeer wacalaykum assalaam jazakallah ha balanta ka sugooda 5 saacadood baa maanta ku jirna spacekan saadna waa yara daalayba laakiin waa iska maasha allah de waxa topic muhiima ka hadlaynaa so taas insha allah jazakallah sidaa hadashay adeer aad baa ugu mahadsan tahay adeer maax ku soco insha allah soo dhawa sharmaake waa maasha allah 5 saacadood iyo in ka badan ba waynu joogi waxaad u qabanayso dadkaaga ilaahay kaa jazaysiyo tana sadaqa ah ilaahay markaa camalkaaga iyo wixii hamigaaga baa ku fuliyo intii ilaahay inaga qaaday ee ugu sokeeyay walaalkeenna ilaahu naxariisto waxaynu iskugu nimidnay baa camala xitaa fadhigan aynu wada fadhinaa camala wanaagsan oo sadaqada laakiin mar kasta walaalayaal ha iloobina critical thinking ha iloobina because meeshaynu u soconnaa way fog tahay sahadeyduna way yar tahay marka critical thinking baa lagaga bixi karaya sahada yar waxaa lagaga bixi karaya maskax iyo aqli laga shaqeeyo nin walba meeshuu joogo ha ka shaqeeyo laakiin waxa loo baahan yahay wax la taaban karo inaynu isla gaadhno si at least 1 inch tallaabo yar wax ka yar aynu u dhaqaaqno taasina waxay keenaysaa inaynu wada hadalka noocana badinno markaynu dhulkaa joognana and by the way aniga ha imaalaynina nin dee ama niyad jabay oo soo xanaaqay 2005kii baan geeyey shirkad Intelleg oo investmenta jeel baa la igu royo intaas ka soo baxuma siigadiiska biyo waska diyaaraddu ma soo raacay waana ku noqon doonaa because waxa jooga not ehelkay maaha waxa jooga waa madheertaydii baa taalla intaan halkan joogo oo qurba joogo wax ka barto oo lacag sameeyo kuma noolaan karo waxaan halkaa ka soo arkay you can imagine wanaagga iyo positive-ka iyo quruxday leedahay laakiin haddana waan damqanayaa damqashadaasaan doonayaa inay dadku intay wada damqadaan hay gacanta isqabsadaan oo wax sameeyaan waxaan ka bilaabay eegada day to day issue weeyaan waxaan kuu sheegaya waxaan ka bilaabay ninka garanaya wataan ku soo xidhayo jigjiga yar businessyada ku yaala from safari ilaa laga gaadho istaanka 150 iyo jigjiga yar ayaan midig iyo bidix keligay socday waxaan u socday wax kala maaha waxaan waayay waxaan ka hadlayo cid igala hadasha iyaga kamay ahayn aqoon darri way iga aqoon badnaayeen kamay ahayn wax kale too 6 saacadood inaga qaadanaya taa geli maayo laakiin waxaan waayay data cid aan data kala sheekaysto waayo wixii aan soo hadal qaadaba data baa igu soo dhacaysay numbers inaan ka hadlo qofkii ay khuseysaan u tagayaan numberkii ma hayo uu garanaya laakiin ma hayo waxa aan weydiinayay waa one thing eegada adigana ku khuseeya ninka maanta lacagta diraya inanka qulquljoogii hooyada qulquljoogee joogta xagaana khuseeya anigana ay khuseeya waxaan weydiiyey war text message baa ii soo dhacaan ku wiri Central Bank of Somaliland baa ii soo diray sarifka lacagta I understand inuu dukaanku wax bedelo kolba sidii uu yahay sarifkaasi oo wax yar bedelo maxay ku dhacday in waxaan ka iibsanayo hawna sarifka la xidhnayn wuxuu yiri adeer waxa adsido iska tuur
waxaan dawlad baa soo qortay xukuumad baana soo qortay waanan kugula sharciyan kula eegada critical thinking baan ka horreysiiya ha igu odhanina Somaliland baa la joogay waxaasi kama shaqayso that's qalbigaygan ka ooya because 2005 baa la igu yiri waxaan this is Somaliland nothing was for no it doesn't work like that saw ma shaqayso dukaankan hadduu hal dukaani hadduu ifahmo I'm okay why maxal Cabdilqaadir u weydiinaysaa ama maxuu u weydiinaysaa inta aan idin sheegay territory-gaasi dukaamada ku jira qurba joog baa u badan haddaad tagtaan dib ugu noqda inta meesha joogta magacay ku qorteen baad ka dareemi doontaan iyo siday u shaqeeyaan way dhiban yihiin waxay ku dhiban yihiin isbeddelka sarifka ee iyagu goosteen ee khayr caadiga ee aan xukuumadii xitaa hay diidan tahay ee isbeddelaya ma habeenka markuu xirayo xisaabtiisa wuxuu arkayaa big gap oo minus inuu ku jiro hadda qofkan uu shaqeeyay maxaad ugu jirtaa weydii orodoo soo weydii bogey qal maxaad ugu jirtaa adigoo waxaan oo dhan iibiyay inaad minus ku jirto because dollar baa loo dhiibo bari toole ka sarifanaya maybe inuu dhulka geliyo madaxa ku dhufto you shouldn't work like that saa uma shaqayso waa day to day life keenu waxa weeye khatar buu inagu hayaa nolol maalmeedkeena laba mid baa soo baxaysa intiinana weliba waan idinka codsanaya inaan laba mid idhinaahno maxow waxaan ku nool lahay chronic disease baa inahaya xanuun ahaan waa inaan la noolaano I understand that cancer baa jira waxbaa jira xanuun aan dawadiisa la helin baa jira haynu la noolaano or waa inaan ku idhaahdo lugtu way ku xanuunaysaa dawadaadiina wataasi ood aqbasho labadaa mid wey qurbajooga waxaan ka doonayaa hadday idinku yidhaahdaan we have a chronic disease there is a cure ii dhegaysa aniga haddaynu labadeennu wada hadalno waynu isfahmi doonaa businesskaasi u badbaadi